Gudiga Dorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa ay goor dhaweed ku dhawaaqeen inay dhamaatay guud ahaanba dhiibashadii codadku isla markaasina la xidhay dhammaan goobihii ay dadku codkooda ka dhiibteen. Waxay sheegayaan gudidaasi in ay haatan bilaabantay tirinta codadka ay dadku maanta dhiibteen guud ahaanba 1642 goobood. wariyahayaga Cabdishakuur Day Maxamed oo haatan ku sugan xafiiska gudiga doorashooyinka qaranka ee guud ee magaalada Hargeysa oo aan la xidhiidhay ayaa bal waxa aan weydiinaya Cabdishakuur halka ay marayso tirinta codadku. Cabdishakuur bal nooga waran ilaa haatan halka ay wax marayaan iyo warbixinaha ugu dambeeyay gudiga doorashooyinka ay ka sheegayaan tirinta dadku ay codkooda dhiibteen. si fiican ayaan ku maqlaa Maxamed ilaa hadda waxa ay sheegeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland waxa ay tahay in codbixinta ay soo xirantay goobihii lagu tirinayay wali lagu sugan yahay oo mas'uuliyiintii ka socday gudiga doorashooyinku ay tirintii wadaan iyo sidoo kale goob joogayaashii iyo sidoo kale xubnihii kale ka socday xisbiyada ee doorashada ilaalinayay. gudoomiyuhu waxa uu sheegay in halkaas codka lagu tirin doono isla caawana goobahaasi laga soo anba bixin doono oo la keeni doono qalabka iyo sanaaduuqda iyo codkaba degmooyinka doorashooyinka ee Soomaaliland oo 22 halkaasi haddana dib loogu tirin doono kadibna la keeni doono gobolada halkaas oo marka u dambeeyay natiijooyinka lagu soo shubi doono xarunta dhexe ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. dhowr maalmood kadibna laga yaabo in si toos ah loogu dhawaaqo natiijada ka soo baxday codbixinta maanta ay dhiibteen dadweynaha Soomaaliland. halkaasna uu ka soo baxo go'aanka shacabka ee ku saabsan madaxweynaha xilka qaban doona ee Soomaaliland 5 sano ee soo socda waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland ay yeelato. sidoo kalena Cabdishakuur Day Maxamed bal waxa aad ka warantaa ilaa haatan maxaa dhibaato ama caqabada ee ay gudiga doorashooyinku sheegeen in ay ka hor yimaadeen ilaa iyo intii ay dadku codkooda dhiibanayeen ilaa maanta maadaama aad haatan ku sugan tahay xafiiska guud ee gudiga doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ee ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa. Maxamed haddii aan eegno waxa uu gudoomiyaha gudiga doorashooyinku ka hadlay caqabadaha soo wajahay doorashada intii ay socotay hayeeshe gudoomiyuhu waxa uu sheegay inaanay dhicin waxyaabo waaweyn oo la xusi karo oo ku saabsan caqabadaha doorashada. waxa uu laakiin xusay arrimo ku saabsan dhaawacyo ka soo gaaray qaar kamid ah howlwadeennada dhanka doorashada gaar ahaan ciidamada iyo xubno kale oo gudiga balse waxa uu xusay inaanay ahayn wax waaweyn marka laga reebo 2 askari oo ku dhaawacmay xabad askari ka fakatay arintaas oo ka dhacday gobolka Togdheer. gudoomiyuhu marka la isku soo wada duubo waxa uu sheegay inaanay dhicin waxyaabo waaweyn. waxa sidoo kale la xusay saraakiil mucaarado ciidamada booliska ay qabteen oo xabsiga la dhigay kadibna isla markiiba uu gudoomiyaha gudigu sheegay inay ka howlgaleen oo markiiba xabsiga laga sii daayay kadib markii meelaha qaarkood uu muran ka dhacay goobaha codbixinta ciidamaduna ay talaabo qaadeen. inahaasi ayaa uu sheegay waxa la filayaa ilaa bariina tirintu socoto ilaa maalmaha ku sii xiga wixii waraa ka soo kordhay ee kastana waxa sheegay gudiga doorashada oo mar walba warbaahinta halkan xarunta dhexe ee hadda aanu ku sugannahay ka bilaabaya wixii macluumaad ka siinaya warbaahinta. waxaana daawadayaasha ay kala socon doonaan Home Cable TV wixii waraa ee ka soo kordhay arintaasi. iyadoo mas'uuliyiinta gudiga doorashooyinku ay mar kastaba warbaahinta la socodsiinayaan wax kasta oo ka soo kordha xaaladda codbixinta ayaa wararkii ugu dambeeyay ee galabnimadan ay bixiyeen gudiga doorashooyinka gaar ahaan gudoomiyaha gudigaasi Cabdulqaadir Iimaan Warsame ayaa afayeenka gudiga doorashooyinka Siciid Cali Muuse waxa ay sheegeen in codbixintu ay dhamaad ku dhowdahay isla markaasina aanay jirin wax caqabado oo ilaa iyo saaka la soo sheegay dhammaan gobolada Soomaaliland dadkuna ay si habsami u dhiibteen codkooda meelaha qaarkoodna dad tiro yar ay ku sii harsan yihiin oo codkooda ay dhiibanayaan xarumuhuna ay sii furnaan doonaan ilaa 6 galabnimo oo haatan wax yar ay naga xigaan intay noo suurto gashay oo ilaa kala bar gaaraya ayaan hadda aan ka soo galnay aniga iyo koox ila socotay waxaanuna dhulkaasi ku soo aragnay markii aan tagnay kuyadu waa dhaadheeraayeen marka runta loo hadlo goobaha qaarkood xoogaa cabasho yar baa jirtay oo ahayd xagga safafka oo dheer oo iyo dadkii shaqaalaha ay leeyihiin mararka qaarkood waa gacan culus yihiin. waxaanu sameynay markaa shaqaale kale aan ku xoojinay xataa iska daa shaqaalihii kale ee ardayda ahay shaqaalihii commissionka ee halka kan ee noo qaabilsanaa hawlaha muhiimka ah iyo maamulkaba ayaanu ku soo xoojinay qaarkood oo hadda kaga nimi markii safafkii hadda aan ka imanayna safafkii way dhamaadeen
kuwii igu badnaa ayaan siri alla ilaa 10 qof baa taagnaa intii goobadana soo maray markii aanu tagnay meel aanu ka maqalay waxbaa dhacay dhibaato weyn keenaya oo aan dhaafsisnayn inta safka dheer kuwaasina imika dhamaadeen haba yaraatay ma jirto sida u dhacday habsamida qofna aanu codkiisi cod dheer oo laba cod aanu ku ridin saddex cod aanu ku ridin waa mid ilaahay loogu mahadnaqo maanta oo aynu galabta joogno dhammaan goobihii 1642 gooboodba way shaqaynayaan kollay warbixinta ugu dambaysa waxaanu idin siin doonaa 6 galabnimo laakiin hadda markaan gobol u soo qaato gobolka saaxil markaan ka bilaabo 75 goobihii way soo gabaabsi ama way xidhmeen gobolka togdheer 60 way xidhmeen gobolka sool 70 way xidhmeen gobolka sanaag 65 way xidhmeen sidii nugu soo gaadhayaan saaka waxa jiray in xalay la seexday xalay 3 habeenimo nacam wadaniyada qiimaha wadaniyadu ku leedahay dadkana ay cadeynaysaa waa nabad guud ahaan cod bixintii oo dhacday iyadoo si weyn loo soo baxay si aanan filayn ba loo soo baxay dadkii aad bay goboladoo dhan uga soo baxeen sidaas iyo inakoo 6 kala qaadana warka kale gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa afayeenkuwa waxay ka digeen wararka aan rasmiga ahayn shacbigu inaanay dhageysanin isla markaasina ay ku xidhnaadaan wararka rasmiga ah ee ka soo baxaya mas'uuliyiinta gudiga doorashada waxaan u sheegaynaa dadka in ayyan rumaysan waxyaabaha la isla dhexmarayo ama ha ahaato dad sheekaysanayo wararka isu sheegaya waxaan uga digaynaa dadka natiijo iyo warar la sheego oo la yiraahdo waxaasa halkaas ciidaas ku guuleysatay goobta intaas laga codeeyay waxaas laga sameeyay waxaas uga digaynaa dadka wararka rasmiga ah meesha kaliya ee ka soo baxayaan waxa weeye xarunta komishanka doorashooyinka qaranka sidoo kale waxa ciidamada ammaanka ay ugu baaqeen in saacadaha ugu dambeeya ee cod bixinta inay feejignaan muujiyaan dhinaca ammaanka goobaha cod bixintu ay ka dhacayso hal la feejignaado yaan la isoorin doorashadii ama codayntii way dhamaatay wax yar baa hadhay iska taga waa waqtiga ugu darantay waa waqtiga madowga ee maqribiyada soo kasho ilaaliya markay xiranto dul taagnaada markay tirinayaan ilaaliya ilaa sanduuqa la soo qaado ciidamada qalabka sida waxaanu leenahay ha ka dul tagina sidii nibaad heegan ugu jirtaan marka sanduuqa la soo saaro baabuurka ayaynu nafisaynaa ee la keeno maxayday degmada cabdishakuur day maxamed honkable TV xarunta gudiga doorashooyinka magaalada Hargeysa dawadiyalkaas waxa uu ahaa cabdishakuur day maxamed wariyahayaga ku sugan xafiiska gudiga doorashooyinka qaranka ee magaalada Hargeysa aad iyo aad buu mahadsan yahay bal imikana aynu eegno madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo haatan isagu madaxweynaha xilka ka degaya saddexda musharax ee u tartamaya xisbiyada mucaaradka ah ee ucid wadani iyo xisbiga talada dalka haya ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi injineer Faysal Cali Waraabe iyo mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa maanta waxay codkooda ka dhiibteen xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda ee magaalada Hargeysa waxaana halkaasi baaq ugu direen guud ahaanba shacbiga Soomaaliland ee codka maanta dhiibanayay wariyahayaga Cabdishakuur Day Maxamed oo maanta ku sugnaa isla goobta ay ku codeynayaan ayaa ka waramaya daawadayaal wali waxa socota cod bixintii doorashada Soomaaliland waxaana xaruntan aan ku sugannahay ka codeeyay madaxweynaha Soomaaliland ee xilka ka sii degaya Axmed Maxamed Siilaayo iyo sidoo kale murashaxiinta xisbiyada ucid kulmiye iyo wadani injineer Faysal Cali Waraabe Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro mid kastaana markii uu codkiisa dhiibtay waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay dareenkiisa iyo rajada doorashada uu ka qabo waxaana kamid ahaa hadaladoodii Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaam u dirayaa shacbiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan ku hambalyeeynayaa dhammaantood inay saaka u dareereen inay dhiibtaan codkooda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliland ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay anigoo muwaadin ah codaynta doorashada oo hadda soo codeeyay khadkii aan ku codeeyayna waa ka fartayda ka muuqda waxaan u rajaynayaa shacbiga Soomaaliland inay si nabadgelyo iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhiganay
ciidanka ammaanka la shaqeynaya inay si nabadgelyo ku codeyno waxa shacbiga leeyahay nabad ku codeeya muwaadin kasta xisbiga doonaha u codeeyo waxaan ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaal ah insha Allah waxaan rajaynayaa inay guul inoogu dhamaato waxaan aad u rajo weynahay in doorashadani magac weyn u keento Somaliland inay noqoto doorashadii i'tiraafka Somaliland haddii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan shacbiga saxaafadana waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dareenkaaga nooga waran siduu yahay maanta waad codaysay doorashadii madaxtooyada Somaliland musharaxiintaad ka mid tahay bal dareenkaaga ka waran hay'adda shaqaalaha ka codaysay bismillaahir rahmaanir rahiim dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan alxamdulillah ilaahay baa mahad leh ilaaha nabadda iyo horumarka iyo codaynta nabadda ayna gaarsiiyay waa mahad leh insha Allah wanaagna way noogu dhamaan doontaa ayaa nabad wixii imka dambeeyna madaxweyne cusub ay heli doonaa saddex murashax mid baa soo bixi kii soo baxana waa la shaqeynaa aad baan u kalsoonay in codka intuu badan helay dalka ilaahay baa mahad leh ilaaha maanta dalkeena nabad qab iyo wanaag iyo horumarin iyo doorasho aynu madax cusub dooranayna ilaahay intaaba in siiyay baa mahad leh ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu wanaaga inoogu dhameeyo nabadda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu qoto doorasho khayr leh oo dalka hore u maraysa oo wanaag noo horseeda aan inaba wax turxaan inoo keenin ilaahay baan ka baryaynaa maanta anigu dadka waxaan la qaybsanayaa farxadda iyo dareenka sare kuwa ay maqlayeen waxaan leeyahay codka igu rooraada haddii alla yidhaahdo dalkuna nabad buu ahaanaya warwarna ma jiro ragga sharaxanina waa rag wada odayaala dalka daraynaya aan loo baqaynin aad iyo aad baa u mahadsantihiin insha Allah guul baan noo rajeynaya qaranka mudane gudoomiye dareenkaaga ka waran codkaaga baad dhiibatay bal ka waran sida hawlu socdaan alxamdulillaah rabbil caalamiin alxamdulillaah rabbil caalamiin alxamdulillaah rabbil ilaahay baan mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'aala ilaahay noo hirgeliyo doorashada ololihi nabadda nagu socoto ilaahay waxaan ka baryaynaa nabad nagu dhamaataa ilaa hadda si fiican bay nagu socotaa magacii baan soo celinay Somaliland ee xusba kulmiye baabiyey ee guurtidu baabisay ee wakiiladu baabiyeen markay ka kici waayeen kuraasidii ee waqti dhaafeen ee adduunka inaga jeesaday haddana hadday soo noqdaan kuwaas hadduu ciro soo noqdo oo ahaa wakiilada muuse biixo ka soo jeeda kulmiyo dalku dhabar ku sii jeedinaya annagu noo soo jeedinaya wejiga insha allahu tacaala ilaahay nagu noo soo jeedinaya markaa dadka ay ku jirtaa inay isnidaamiyaan guul kitaabka nabiyadu ha dhacdaan leen insha allahu tacaala calankaagu ka nabay codka iyo fartaado madaxweynaha iyo marwada koowaad waxay ka codeeyeen codkooda ka dhiibteen xarunta shaqaalaha labada musharax guuleysta ayaa qarankan maamuli doona madaxweyne Siinaayana talada qaranka ku wareejin doona aad u mahadsantii ugu dambeyntiina waxaa dareenkooda muujiyay qaar ka mid ah dadka codkooda dhiibtay iyo kuwa safafka ku jiray kuwaas oo iyaguna muujiyay rajada doorashada ay ka qabaan iyo xilliyada ay doorashada u soo kaceen iyagoo la hadlaya telefishinka Home Cable waxaa hadalkoodii ka mid ahaa magacayda Awraad Saalax baa la yiraahdaa Awraad Saalax guri telefonkii galay ku soo baxnay doorashadana waxaan filayay kii Ilaahay uu qoray inuu helo أحمد محمود موسى أحمد محمود موسى مصابيسي هاسي وناكسل يدو كيوغي دسك العطعيتي كرايسين سي وناكسل إيسي داون يزأ هذا هو القصيدة كيوغي ما تقلين هاسي وناكسل فرحتين بي قصيدة علامة يهسا أوجد disability marka waqti badan kugu may qaadan waad soo codayso waad soo baxday bal dareenkaaga ka warrada gudihiina way soo kacaan dumar habla iyo rag badan way shaqeeyaan dadna si wanaagsan baan axsaabta qofkan doonay ugu soo riday dawladda imika aad u codaysay ama musharax aad u codaysay maxaa doonaysaa inuu bedelo noloshaada maxaa u malaynaysaa inuu bedelo waa qof mas'uul qaaday kale tabada ilaahay ma Allah ku asturaan leeyahay inuu talaabo ka sii wanaagsan sii qaado talaabooyinkii hore la qaaday hadda waxaan ku sugannahay safka xaqiisa dambe dad badan ayaa ku jira safkuna aad buu u dheer yahay bal waxaan kelmado weydiin doonaa qaar ka mid ah dadka codkooda u diyaarka ah inay dhiibtaan magacayga markaan ku bilaabo Axmed Cabdilaahi Suldaan baa leedahay Axmed Cabdilaahi Suldaan sidee baad u aragtaa maanta inaad saf dheer ku jirto oo aad codkaaga dhiibanayso bal dareenkaaga noo muuji waxaan ku muujinayaa waxaan u arkaa farxad weyn oo dareenkayga aan ku muujinayo ummadii Soomaaliland oo maanta halka ku dhunto wada ku jirta oo ayaan ku faraxsanahay waxaan ku faraxsanay doorashadii waan soo galay
doorashada maxaad ka filaysaa wanaag baan ka filayaa insha Allah kii khayr qaba soo baxaya maanta aad baan shucuurteedu aad buu kacsan tahay waa si nabadgelyo ayaan soo codeynay saakiin 6 baan nid safka xaq horaan ka galnay si nabadgelyo aan ku galnay waxaan ka rajaynayaa in si guulo iyo nabadgelyo nagu dhamaato isbedel khayr qaba inuu yimaado waxaan ka rajaynayaa in waddanka horumariyo iyo dhalinyarada farxin magacaygu waa Ismaaciil Qowdin Haybe waxaan wataa kaarkii waxaan soo luganayay 20 kilomitir waxaan ka qaatay iskuulka biyo dhacaga sare markaa imika waxaad ku socotaa halkii aad ka codeyn lahayd halkaan ka codeyn lahaa imika ka socdaa 20 kilomitir baan imika soo luganayay maadaama gaariyaashii maanta la joojiyay maxaad ka rajaynaysaa musharaxa iyo madaxweynaha soo bixi doona inuu qabto dalka ama inuu dhalinyarada u qabto maxaad ka rajaynaysaa insha Allah adu waxaan ka rajaynayaa waxyaabo badan waxaan isleeyahay insha Allah isbedel khayr qaba caafimaadka oo kale inuu horumariyo dhalinyarada oo kale xagga biyaha oo kale waxyaabo badan ma doonaysa insha Allah inuu xagga Somaliland horumariyo madaxweynaha cusub aan ku socdaa meeshan ka codeynayo fooqa naafada ee magaalada Hargeysa jiri ama loo yaqaan fooqa jajabka saaka 6 baan soo kalahay haddana imka waan ku socdaa waan ka codeynaya hadii aan la yiraahdo cid aan u codeynayaana way caddahay maanta waxaan waqtigeyga u horeeyaa saan u dooran la murashaxa aan ku sheegay ee aan u doortay inuu badbaadin karo waddanka kaasa waqtigeyga ugu badan ku qaadanaya ilaa caawinaya hadii ku gaadhiso waa maasha Allah sida aad arkaysaan qof kastaaba codkiisa ayuu dhiibtay waxaana uu ku faraxsan yahay inuu cod bixintii doorashada uu gutay daawadayaal sida xalay toolaba ay shaaciyeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo saraakiisha laamaha amniga guud ahaanba magaalada Hargeysa waxaa gabi ahaanba la joojiyay gaadiidka dhaqdhaqaaqooda marka laga tago gaadiid kooban oo ay ogolaansho siiyeen guddiga doorashada sida wadada idinka muuqatan dadka oo dhan waxa ay u lugeynayaan goobaha codbixinta kuwa kale waxay ka soo baxeen goobaha codbixinta oo codkooda ayay soo dhiibteen taasi ayaana muujinaysa in saxmadii magaaladu ay gabi ahaanba